الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عشر كيجي تويتريالسكي كيمستري عشر كيسي لبعض أيان عاو سوتشيديننا يكون بحيل لغة الصومالية إن سوتشيديني سي اقرأ education program. عشر كيجي هراء هذانو كسي تحرعنه وحقو كهلي يونيفرسيغا إنكو كوبين الله وحيابو بدأ كوبادو أهماتر ولاح iyo tan labaad oo ahayd energy tamar waxaanu si gaar ah u focus gareyn doonaa ama si gaar ah uga hadli doonaa maatarka walaxdu waxay tahay haddii aan macno guud idinka siiyo intaanan u gudagelin qoraalkaygaan slideskan soo diyaarshay sideedaba walaxdu waxa weeye waa alaab kasta oo dul saaran dunidan aanu ku noolahay alaabtaas waxay noqon kartaa buug waxay noqon kartaa biyo waxay noqon karaa baraf waxay noqon karaa saliid waxay noqon kartaa hawada waxaan adig laftirkaaga noqon kara maatarka intaas oo dhan waxa la isku yiraahdaa maatar waa walax waxay leeyihiin maatarku wuxuu leeyahay oo lagu qeexaa laguna gartaa qaab iyo inuu buuxin karo meel weel maran labadaas ayaa maatarka lagu qeexaa wuxuu leeyahay adke wuxuu leeyahay dareere oo hor Soomaaliga grammarka naxwaha Soomaaliga lagu yiraahdo iyo gas oo hawo ah ama neef saddexdaasi wajiyo kala duwan waxa laga yaabaa mid kamid ah walxaha inuu saddex waji u gudbi karo sida barafka oo kale barafku marka koobaad waa adke wuxuu noqon karaa dareere haddii la kululeeyo haddii la sii kululeeyo wuxuu sii noqon karaa waxa la yiraahdo hawo oo uumi ahaan buu u bixi karaa uumigaasna wax la arki kara maaha solidka haddaan ka bilowno solidku waxa uu leeyahay solid is definite shape and value waxa uu leeyahay qaab qeexan oo la tilmaami karo iyo value weel buuxin mug uu wax ku buuxin karo ayuu leeyahay haddii meel lagu rido amaba la garan karo inta uu qaadi karo baalkan sida tusaale ahaan buugga iyo barafka waana wax la taaban karo ee taabasho leh liquids dareeraha ama hoorka no definite shape but definite value malahan qaab laakiin wuxuu leeyahay cuf la yaqaan ama buuxiye wax weel buuxin karo oo la garanayo weelka intaas wuxuu liter nus liter intaas uu buuxin karaa intaas oo ml waxa la yiraahdo wuxuu qaadanayaa qaabka hadda meesha uu ku jiro weelka ku jira haduu yahay weel ballaaran uu ku fidayaa haduu weel dhuuban yahay dhuumnaantaas uu ku qaadanaya tusaale ahaan waxaan soo qaadanay biyaha ama saliidda oo kale inta badan liquidku haddii meel kala dheer la dhigo uu dareeraa waa dareere gases hawo no definite shape malahan qaab uu qaato loo yaqaano la garanayo loo cayimi karo value intaas uu qaadi karaana lama yaqaan waana wax aysan ishu arki karin hadda tusaale ahaan halkan waxaan soo qaadanay uumiga markuu hawada galo ma arki kartid mana tilmaami kartid mana garan kartid inta uu yahay qaybta labaad haddaan soo gudubno particleska Soomaaliga grammarka naxwaha waxa lagu yiraahdaa tixraac waxaan u soo qaatay oo aan dib u soo akhriyay chemistry-gii hore ee manhajkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya ereyga particle qurub baa la yiraahdaa marka qurubyada halkan saddexda qurub oo u kala hadli doonaa solidkii adkihii iyo hoorkii iyo neeftii solidka haddaan soo qaadano wuxuu leeyahay si hore definite shape qaab la yaqaan buu qaabaysan yahay ma dareero way adag tahay in la cadaadiyo haddii la kululeeyo expands if heats haddii la kululeeyo wuu fidaa particleskiisa waxa weeye strongly bonded si adag bay isugu dhow yihiin each other isugu xiran yihiin isu haystaan aad bay u adag tahay haddii la gariiriyo waxa weeyaan dhaqaaqoodu wuu ka hooseeyaa
waxa la yiraahdo sheeg dareeraha iyo gaaska sidaas la mid ah hadda muuqaalka sida halkan idin kaga muuqdo tusaalahan waxa arkaysaa qurubyada uu ka kooban yahay solidka si isugu dhow yihiin isuguna dhagan yihiin liquidka haddaan u nimaano definite shape ma lahan qaab ma lahan la yaqaan hadba weelka uu ku jira qaabkiisu qaadanaya si fudud buu u dareeri karaa can flow to take the shape at the bottom of the container inta badanna bottom containerka silkiisa hoose hadba qaabku yahay ayuu qaadanaya aad bay u adag tahay in la cadaadiyo weel ay biyo ku jira inay cadaadiso aad bay u adag tahay weakly bonded way is haystaan qurubyada oo liquidka dareeraha laakiin ma ahan sida kuwa solidka oo kale kuwa aad isu haysto isu dhagan oo si awood leh isu haysto aan in la kala jabiyo aad bay u fududahay laakiin markaan solid ka hadlayno way adag tahay in la kala jabiyo markii la kululeeyo si degdeg u dhaqaaqaan midda saddexaad oo nimaana gaasku sifooyinkiisa shape qaab ma leh la yaqaan oo u joogta haddii container lagu shubo oo ku kala fidaa oo ku kala yaaca midba meel buuada si fudud baa loo cadaadin karaa gaaska oo weel waasacna waa ku shubi kartaa haddaa u baahatidna cadaadis inta ku samaysid baad in yar isugu geyn kartaa inta badan gaasku si free ah ama xor ah ayuu u socdaa sababtoo ah malahan isku xirnaansho ka dhaxeeya waxa la yiraahdo qurubyada gaaska sida halkan hadda idin kaga muuqata midba dhinac uu joogaa wax is haysta malahan waxay leeyihiin tamar aad u fara badan aad u badan awoodooda marka la barbar dhigo dareeraha iyo adkaha sidaas la mid ah marka hadaan hal mar dib ugu laabano sida muuqaalka halkan kaga muuqata solidkii waa kana bondiska qurubyada say soo haystaan waa ujeedaa liquidka waa kana qurubyadiisu way isu dhow yihiin laakiin sida awoodda leh oo strongiga ah aad ka awood badan oo ay soo haystaan adkaha oo kala ma ahan sidaas la mid ah hadaan hoos u baxno gaasku waxa weeyaan asaguna isma haysto oo midba meel bay joogtaa sababtoo ah ma xiriirsana bondis xiriir ma lahan sida liquidka iyo solidka oo kale casharkayagii labaad ee maanta intaas ku eegyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh